waxaan marka inaan weydiiyo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan mudane gudoomiye ma noo sheegi kartaa kow laba saddex sababood oo cad oo bulshada reer Soomaaliyeed u noqota run ay ku go'aan gaaraan ama ay kaga quustaan dastuurkan uusan dhammaad lahayn ama ay rajo kama dambaysa ay ku heli karaan sababaha xaqiiqada ah ee bulshada Soomaaliyeed ka hortaagan inay dastuur yeeshaan maadaama muddo 16 sanadood ah dastuurkan uu jitamayay ilaa haddana aysan muuqan saadaal cadaynaysa dastuurku inuu dhammaad yahay oo xukuumaddan iyo dawladdan ay muddadeeda ka dhamaatay midda xigtana sidoo kale aad moodayso inay ilaa hadda aysan muuqan hanaan cad oo muujinaya inuu dhammaanayo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu waa mahadsan Cabdiraxmaan qofka xiga cabshi magaca ku bilow iyo meesha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وعلي سودي النجاية قدوميها مذوقة قراياش الصوماليات سؤال عن ربو إن نويديو قدوميها قدية مدح بنان وحا أي تهي دولة فدرال كأح دستور أي لا هاي دولة قبل يدونا وحي ليه دستور سيدا الاسكوا فجنا يا لبداس دستور ما دام دلكو أو يهي هل دل سيدا كله waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka iyo senatarka inaan si wadara u weydiiyo ma la waayay in arrimaha siyaasadda laga gooni yeelo arrimaha dastuurka oo ayadoo la isku haysto siyaasad ayadoo la isku haysto doorasho ma la abuuri waayay jawi dhexdhexaad ah oo arrimaha dastuurka laga madax banneeyo arrimaha siyaasadda waa maasantii waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo wasiir siyaasaddii dastuurka adigaa ugu sarraysid saan dareemaynana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inta badan dagaal oo caadiya kaba dhexeeyo waa wax koo kooban suurtagal ma tahay inta muddadaadu adigana ay jirto inaad yacni cilladaha yarka ah oo wada xaajoodka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo alxamdulilah iyo dowlad goboleedyada inaad dhammaystirto oo adigana aad dhahdo ama kow laba saddex intaasaa yacni dhammaystirnay oo ka wada xaajoonay oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isku fahmeen tii muxuu ahaa cali suudi nageeye oo iswaafajinta ma garanaysaa xeerarka ama sharciyada dastuurada dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe qodobkii su-aasha ku saabsanayd waxa weeye arrintaas waa ay ku jirtaa arrimaha aanu diiradda saaraynay markii aanu ka shaqaynay maaragtay hawshaas waxaana qabyo qoraalka haddaan hayno iyo sida fakarka aanu u arkaynay wuxuu ahaa in la iswaafajiyo oo lana waafajiyo yani way jirtaa wax badan oo weli aan iswaafaqsanayn oo dowlad goboleedyada yani waxa weeye qaar baaban yani dowladda dhexe iyo joogin markii ay dastuurada samaysanayeen sida puntland oo kale marka hadda mar haddii yani dastuurkii qaranka muxuu ahaa uu yahay waxa gacanta lagu hayo oo aan rajayno inuu dhammaystirmo marka uu dhammaystirmo in la waafajiyo dastuurada maaragtay muxuu ahaa dowlad goboleedyada oo ayaga la waafajiyo maaragtay muxuu ahaa dastuurka qaranka taa weeye maaragtay hadda yani qorsho haddii alla way wasiirka waxyaabaha wasiirka la weydiiyey waxaa ka mid ah Abdishakuur oo sheegay siyaasadda qodobada u baahan in siyaasad ahaan go-aanka laga gaaro Abdishakuur bilow waqtiga haray ee dowladda u haray ma laga yaabaa in xukuumadda oo adiga aad matalayso ay dhammaystirto oo xal laga gaaro Soomaaliyana maadaama howlihii ugu waaweynaa mandateeka dowladda ama xukuumadda iyo madaxweynihii la doortay 2016 ay ugu waaweynayeen dhamaystirka dastuurka ma laga yaabaa inay tiraadaan siyaasaddii waa ka heshiinay qodobadaas hal ansixiyo Soomaaliyana ha u dhaqaaqdo dastuur kaliya u baahan afti dadweyne way magacii ninkii u dambeeyay Cabdishakuur dalkana wada joognaa xalka dalkana waa wada ognahay waana nin loo yaro aqoon-yahana practitioner waliba sida uu sheegay qodobadu ilaa 10 bay gaadhayeen siyaasiyiin u baahan in laga wada xaajo waxaa ka mid ah yaa Soomaaliya yani yaa citizenship ama jinsiyadda muwaadinimada Soomaaliya yaa qaadanaya 62 raggii beriga noolaa iyo gabdhihii tilinaya waxay yiraahdeen wiilka Soomaaliga ah ama gabadha Soomaaliyeed ee aabaheed uu ka soo jeedo isir Soomaaliyeed waa Soomaali citizenshipkana waa la siinaya laakiin ilmaha
aabihii aanu soomaali ahayn la siin maayo marka haddii mabda'a hore lagu shaqaynay 62 ismaaciil cumar geelle mustafa cagjar aadan barre ducaale dhammaantood waa muwaadiniin soomaaliyeed iyo inta ku hoos nool iyo inta ku nool Canada iyo inta ku nool mataqaanaa Ingiriiska taawar fahanteen soo ma adduunku hadda wuxuu u guuray citizenshipku inaan isir uun lagu salaynay qaranku uu bixiyo waa warqad legal document oo qaranku uu bixinayo waa laba afkaarood midna isir iyobay ku xiriirsan tahay taariikh midna waa legal document hadda haddaad dhoofto ood Ingiriis ka degto markaad shuruudaha iyo waajibaadka buuxiso waa lagu siinaya sida Ilhaan Cumar baad waxaad noqonaysaa senator Mareykanka haddaad tagto waa su'aalaha ugu basiidsan su'aashaasi waa su'aal taabanaysa wax Soomaalida ahmiyad weyn ugu fadhiya wax ay taariikh durugsan iyo mataqaanaa xilliye adag u soo martay golaha wasiirada 3 goor baa la keenay 3 goorba dib baa loo celiyay waa su'aasha ugu fudud waxaa ka mid ah su'aalaha aan dastuurka oranan dib toosan loogu eego laakiin in go'aan siyaasi laga gaaro loo baahan yahay maqaamka magaalada Muqdisho 3 milyan oo qof baa xamar ku nool baa la yiri xuquuqday lahaan lahaayeen siyaasadeed iyo maamulkay lahaan lahaayeen wali cirku ku laalan yahay baarlamaanka la keenay baarlamaankuna say dood ugu dhacday wad la socotaan nin xoogay soo jeeday ilaa tahay arrimahani arrimo markaa fudud oo mashruuc bay yihiin iyo siran bay u dhacayaan in la iska oranayo mahe waa arrimo taabanaya wax fara badan oo xasaasi ah oo loo baahan in si cilmiyana looga falgalo hadda idinka markaan idin eego krimkii dalkan baa tihiin dhalinyaradii wax baratay baa tihiin waxaan filayay in afkaaro aad ka qabtaan oo aad oranaysaan qodobka hebel saasaan ku tarin lahayn saasayna la tahay laakiin su'aalihiinuba hadday noqdaan wixii muxuu dhammaan lahay wuxuu dhammaan maayo ilaa dad loo helo dhammaan maayo aan dhamaystiro weli ma arko qof Soomaaliyeed oo oranaya issueska la isku haysta maxay waxa laga hadlaa yaa is haysta tobankaas su'aalood anagu optionaanu ka diyaarinay waa noo wada diyaarsan yihiin maqaamka magaalada Muqdisho 3 xulashooyin buu leeyahay hanaanka maaliyadeed xulashooyin buu leeyahay hanaanka cadaaladdu xulashuu leeyahay hanaanka amnigu xulashooyin buu leeyahay awood qaybsiga awood haddaad maqasho waa 26ka awoodood ee wasaaradaha federaalka yaala ta waxbarashada kamid ah waxbarashada sooyaalada kamid ah dhigeysan jirin waa la isku haystaa Soomaaliyeed maqli jirin weli ma baadheen war waxaan la isku haystaa sidoo muxuu yahay waxbarashada markaad eegto waxay u kala baxaysaa ugu yaraan 25 function awoodood oo waxbarashada ku soo dhex jira yaa maamulaya tacliinta sare yaa maamulaya iskuulaadka dhexe hoose sare yaa maamulaya cilmi baadhista yaa xuquuqda ilmaha Soomaaliyeed inuu waxbarasho helo waa xuquuq yaa hirgelinaya aan soo dhameystirey doodaasi iyadoo cilmiyeysan aqoonyahanka Soomaaliyeedna badimiiska ma soo saaro siyaasiyiinta wada xajoonaysaana wixii aniga iyo adigu malihid bay ka bilaabaane war waxaan horta ma bakayla mise waa maroodiis ma weydiiyaan waxa laga hadlayaa marka xoogay idinka naftarkiinu baasha cilmi ku yara dara soo daraaseeya deegaanna iyo dalbad ka soo kala jeedaane afkaaraha soo tabiyo oo saasoo madaxdan ilaahay garansiya markaad soo tabisaan idinku way gudoomiye Cawaale su'aashi dhameystirka baarlamaankan ma dhameystiraya waqti muuqaal inkastoo hore uga jawaabtay waa yahay marka ugu horeysa horta shaqadii loo idmaday 3 guddi waxa weeye 80% ilaa 90 waa dhameystiray waa naga soo dhamaada anaga muddo sanad ka hor naga dhamaaday wuxuu u fadhiyaa waa la sheegay waa lagu celceliyay waxa weeye waa arrimo marka ugu horeysa faham bulshadii Soomaaliyeed fahanba kama yani dareen wadaniyadeed kama muuqdo hadde ma malayn maayo qolo oo bali u banaan baxaysa dastuurka maxaa loo dhamaan waay degmo u banaan baxda iyo dad dhalinyaro ah oo lama hayo marka horta fakarkii qofkan mas'uulka ah oo madaxda ah ama heer qaran ha joogo oo dalka federaal ha ahaado ama heer dawlad goboleed ha joogo wuxuu wax ku cabiraa fakarka iyo aragtida dadka oo mas'uulka ka yahay marka meesha waxa ka maqani kaliya yaa la eegin dhinaca madaxda kaliya
madaxda waa laga gudbi lahaa haddii shacbiga soomaalidu fakar fiican ka haysto marka dastuurku waxyaabaha uu u fadhiya waxaa ka mid a kow waa khilaaf siyaasadeed labo waa faham shacbiga soomaaliyeed markee nin waliba area walba faham gaar ay ka haystaan waa marka saddexaadee soomaali midnimadii soomaalida waa muqadas laleeyahay somaliland waa maqan tahay dastuurkan iyo annaga qorshaha iyagana kuma jirto marka marmar waxaan idhahnaa adinka miyaa maxaa ka shaqaynaysaan waayahay waa mahadsantaa guddoomiye cabdirashiid oo ka mid ahaa dhalinyarada ayaa wuxuu weydiiyey haddii caqabadaha siyaasiga ah ee taagan aan laga gudbi karin muxuu la tashigu taraya wasiir yuusuf cabdirashiid ayaa su-aasha ina weydiiyey waana su-aal aada u muhiima waxaa kaloo jirtay suudimadu ku xidho oo ahayd miyaan la abuuri karin jawi laga dahaadho loolanka siyaasadeed dastuurka waa fahamkii ugu quruxda badnaa ee intii aan dadka la falgeliyay aan maqlo marka laga hadlayo culumta siyaasadda waxaa la yidhahdaa si siyaasad looga midho dhaliyo ama mid dhaqaale ha ahaato ama mid caafimaad ha ahaatee waa in laga dahaadho faragelin siyaasadeed iyo rabitaan bulsho oo kaliya qof marka insulation yani waa firewall baa lagu xidhaya wey dastuurku waxay ahayd wax walboo kale ha jiraane in dhacdooyinka nolol maalmeedka ah ee siyaasiga ah iyo rabitaanada dhowdhow laga fogeeyo I think it's a brilliant idea wuxuu abbaaray wax processka la xidhiidha yuusufna wuxuu ina weydiiyey war miyaan wixii intii qabsoontay ummadda soomaaliyeed inta loo soo bandhigo baniyaal laga dhigayn hawsha haddaanu gacanta ku haynaa saddexda hayrood haddaanu nahay iyo maamul goboleedyada intiina soo gaadhay soomaaliyeed waa fadhiisanay 80% dastuurku waa dhammaystiran yahay oo afrax iyo rag la mida iyo cabdi qaybdiid iyo waa ku soo cidiya beelay 4 sano iyo intii kasoo horreysaba mudan afrax waa joogay afkaartan la yiraahdo waa mashruuc iyo wixii ma soconayaan waa iska soo dhammaanayaan waxa la idin sheegayaa waxa la dhammaystiray shanta qodob ee u horeysa qodobada u horeeya waa ilaahay laga boqo dadka naftooda ha loo daayay Soomaalidu intaas kuma qabsanaysa inagu diinna iskuma haysano inkastoo hadda Facebook oo kale markaad eegto marmar 67 dadku waxay leeyihiin dastuur uma baahnin kitaabkiina haysana caalamka ilaahay iyagoo kitaabkoodana haysta dad musliman ah bay haddana waxay isku maamulaan leeyihiin marka doodda haddaynu soo ururino dhowaan annagu waxaanu miiska soo saaraynaa qodobada intii noo qabsoontay intii la saxay intii luqadda laga bedelay optionada wixii aanu dhammaystirnay arrimaha marka intaad isku radsan baad miiska keeni doontaan waxaan ku soo gunaanadaya next mandate-ka cabdi qaybdiid baa si wacan uga dhawaajiyey siyaasiga Soomaaliyeed wuxuu ka hawlgelayaa wixii ummaddu ay ku korjoogtayso dastuurku kama mid aha waxyaabaha lagu korjoogteeyo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka waxyaabaha la yiraahdo war muxuu u dhammaan waayay war maxaynu wax ka qaban weyn